shirweyne beelaha Garxajis ka socday buurtan Gaclibax muddo 10 cisho ayaa la soo gabagabay maanta isla markaana laga soo saaray warmartiyeed ka kooban 8 qodob xilitaanka shirka ayaa waxa ka soo qayb galay ergey ka kala socota qaar ka mid ah beelaha Soomaaliland oo ka kala yimid gobolada Sool, Awdal, Maroodijeex, Togdheer, Hawd, Sanaag iyo deegaamo kale kuwaasoo lagu soo marti qaaday gabagabadii shirka xogayaha shirweynaha buurta Gaclibax Xasan Xuseen Faarax ayaa isagu ugu horeelkaasi ka akhriyay go'aamadii laga soo saaray shirka shirweynaha beelaha Garxajis ee tol wanaagsan laba ee buurta Gaclibax oo bilaabmay 23kii dhamaadayna maanta ay bisha 7/1/2018 waa murtiyeedkii shirweynaha beelaha Garxajis ka soo baxay ugu horeyn shirweynaha beelaha Garxajis ujeedadiisu ma aha in qarannimada Soomaaliland lagu dumiyo ee waa in qarannimada Soomaaliland ee matalihii toosnaa laga duway lagu toosiyo laguna suuliyo cadaalad-darrada badheedhka ah ee lagu kala gudbiyey laguna kala qaybiyey beelihii reer Soomaaliland ee walaalaha ahaa ee dalka iyo dowladnimadu ka dhaxaysay waxaynu ognahay in shirkii nabadaynta ee aayakatashiga ah ee beelaha Soomaaliland ku yeesheen magaalada Boorame si cad loogu heshiiyey in maamulka dowladnimo iyo khayraadka dalka Soomaaliland loo sinaado hase yeeshee waxaan cidna ka qarsoonayn in maamuladii kala dambeeyay ay si cad u duween oo meesha uga saareen cadaaladii sinaantii iyo wadalahaanshihii Soomaaliland ku soo caanamaashay taasoo cid gaar ah si gaar ah u yeelatay ugana faa'iideysato dowladnimadii iyo khayraadkii dalkaba waxa markhaati madoon ah in maamuladii dalka u kala dambeeyay ay si badheedh ah u baalmareen ugana tunteen ku dhaqankii dastuurka iyo xeerarkii sharci ee kale ee dalka u yaalay ayagoo golayaashii sharci dejinta iyo garsoorkiiba siday doonayaan u adeegsaday ama u baalmaray doorashooyinkii kala duwanaa ee intii ay hoggaanka hayeen dalka ka dhacayna si qaldan u maamulay qof kasta ama beel kasta oo reer Soomaaliland ah oo lahajaha ka haysa dalkan Soomaaliland wuxuu markhaati ka yahay in khayraadkii kala duwanaa ee dalkanu lahaa ay cid gaar ah oo gashan shaarka dowladda Soomaaliland ay boobtay oo si gaar ah uga faa'iideysatay ayagoo adeegsanaya shirkado shisheeye oo sahami shidaal lagu sheegay ayadoo aan la marin golayaashii sharci dejinta ee ansixintooda xaq u lahaa isla markaana dadweynihii ku noolaa deegaamadaas loo geystay dhibaatooyin caburin iyo cagajuglayn waxaynu ognahay in ilihii dhaqaalaha ee dalku lahaa sida dekada berbera garoonka diyaaradaha ee berbera lagu wareejiyey shirkado iyo dowlado shisheeye ayadoo aan heshiiskooda loo marin wadadii sharciga ahayd ee dastuurku dalku qeexayay ee dad gaar ah si gaar ah uga faa'iideystay isla markaana aan dadweynaha reer Soomaaliland loo soo bandhigin lagana qancin faa'iidada ugu jirta iyo waxa loogu bedelay ayadoo ay intaas dheer tahay oo ay cad tahay khatarta dagaal ee kaga iman karta dalka iyo dadka reer Soomaaliland kala qaybsanaanta siyaasadeed ee ka dhex taagan dowladaha Carabeed ee aynu dariska nahay ee qaarkood dhulkaas lagu wareejiyay waxaan cidna ka qarsoonayn in wada lahaanshihii Soomaaliland ee soo jireenka ahaa lagu bedelay beelo isu bahaystay boobka Soomaaliland kuwaasoo heshiis beelaysan oo aanay cidna ka qarin ku galay inay dowladnimada iyo khayraadka dalka si gaar ah u wada yeeshaan ugana faa'iideystaan haddaba shirweynaha beelaha beelweynta Garxajis asagoo ka duulaya dhammaan qodobada dhaliilaha ah ee kor ku xusan ee maanta dalka ka jira wuxuu soo saaray go'aamadan hoos ku xusan oo loogu talagalay saxaafadda ama warmurtiyeedkii shirka ah qodobka koowaad shirweynaha beelaha Garxajis ee tol wanaagsan laba ee ku soo xirmay maanta oo ay taariikhdu tahay 1 bishii 7/2018 buurta Gaclibax wuxuu cadeynayaa in si buuxda shirweynuhu la isula qaatay midnimo buuxda oo Garxajis labo beelweynta Garxajis waxay cadeymo buuxa u haysaa in madaxda sare ee dowladda iyo dhammaan qaab dhismeedka dowladda ee madaxweynuhu soo dhisay markii la doortay sida golaha wasiirada dhiijiyada agaasimo waaxeeyada madaxda hay'adaha madaxa bannaan
hogaamada ciidamada kala duwan iyo saraakiisha ciidamada iyo dhammaan shaqaalaha dawladda boqolkiiba 65 ay ka soo jeedaan ama ka tirsan yihiin beelaha isu bahaystay xaqdarrada taasoo xaalad aan u cuntami karin beelweynta Garxajis iyo beelaha kale ee reer Soomaaliland midna sida awgeed waxaanu soo jeedinaynaa in si degdeg ah oo aan daahir lahayn loo saxo loona bedelo cadaalad darradaas oo ah mid aanay Soomaaliland ku sii jiri karin qodobka saddexaad beelweynta Garxajis waxay ku heshiisay inay tala kula noqoto dhammaan beelaha Soomaaliland si loo gaaro ama loo helo Soomaaliland la wada leeyahay hadii ilaahay ka dhigo qodobka afraad beelweynta Garxajis waxa uu cadaatay in khayraadkii dalka maalgashigii dibadda kaalmooyinkii caalamiga ahaa iyo dhammaan qandaraasyadii dalka aan loo sinayn oo si gaar ahna loogu xidhay dad gaar ah taasoo aan waafaqsanayn dastuurka dalka abuurtayna kala sarrayn dhaqaale iyo in hantidii dalka gacanta loo geliyey dad gaar ah qodobka shanaad shirweynaha beelaha Garxajis wuxuu madaxweynaha u soo jeedinayaa kuna adkaynaya in dastuurka qaranka la furo si beelaha darafyada Soomaaliland ee cabashadoodu inta badan soo noqnoqotay iyo beelaha kaleba xuquuqdooda dastuuriga ah ay u helaan awoodda hogaaminta dalkana loogu sinaado qodobka lixaad waxaa cad inay isku milmeen saddexdii waaxood ee qaab dhismeedka qaranku lahaa sida waaxda fulinta sharci dejinta iyo garsoorka sidaa awgeed beelweynta Garxajis waxay ku baaqaysaa in dib loogu soo noqdo ku dhaqanka dastuurka dalka saddexda waaxoodna kala madax bannaanaadaan qodobka toddobaad beelweynta Garxajis waxay dhiiggeeda iyo dhuuxeedaba u shubtay jiritaanka madax bannaanida dalka Soomaaliland si loo helo dal la wada leeyahay ayadoo tiro ka badan 10 kun oo geesiyaal ah ku weyday tiro kale oo intaa ka badanna kaga naafowday sidaa awgeed beelweynta Garxajis waxay digniin culus u diraysaa cid kasta oo madaxda qaranka ka tirsan oo beeshan ku eedaysa qarannimo dumis ama qaran dumis ku eedaysa qodobka 8aad ee ugu dambeeya bayaankan ama warmurtiyeedkan beelweynta reer Soomaaliland bulshada reer Soomaaliland ee nabadda jecel waxay markhaati ka yihiin in dagaalka 2 sano ka soconayay deegaanka degmada Ceelafweyn ilaa haddana socda ee u dhaxeeya labada beelood ee walaalaha ah aanay dhex ka ahayn dawladda Soomaaliland ee maanta jirta iyo dawladdii ka horreysay midkoodna sidaa awgeed ugu horreyn beelweynta Garxajis waxay baaq nabadeed u diraysaa labada beelood ee dirirtu ka dhaxaysa ee walaalaha ah ayagoo leh aqligiinu ha garto dhibaatada guryihiina taalla madaxweynahana waxaanu ku adkaynaynaa inuu ku dhiirado soo afjarista si degdega colaadaas asagoo adeegsanaya awoodda dawladnimo iyo cadaalad iyo inuu wax ka qabto dambiilayaasha dagaalkaas hurinaya ee isugu jira gacan ku dhiiglayaal iyo siyaasiyiinta xukuumaddiisa ka tirsan si ay u fududaato in la isugu yimaado wada hadal nabadeed xalna loo gaadho loogana badbaado in dagaalkaasu deegaano kale ku fido wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh kays axmed digaale saab TV buurta gacan libaax